السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta mowduuceen wuxuu ku saabsan yahay dhinaca madow ee AI-ga. dhinac uusan qof walba ka hadlin. qof walba maanta wuxuu ka hadlaa aaladda macmalka amaba AI. laakiin ma ogtahay in AI uu mar hore bilaabay in dunida si qarsooni ah u beddelo? muuqaalo been ah, shaqooyin lumaya, iyo AI go'aano aan bini'aadamku fahmin iska qaata. weliba marka uu ku siinayo talooyin adigoo si maalinle ah u isticmaalayo aabka ChatGPT. AI maanta wuxuu samayn karaa wax kasta: qoraal, sawir, cod, muuqaal, xitaa music. laakiin ma la socotaa awooddaas kadib waxa ka dambeeyo? waa deepfake, muuqaalo been ah. AI hadda waxaa lagu samayn karaa qof aan jirin amaba siyaasi been ah. dad badanna waad aragtaa way rumaystaan. shaqooyin lumaya. AI keliya ma ahan qalab wax fududaynayo, waa mid shaqooyin badan beddelay: copywritingka, designiska, xitaa muuqaal duubista. ku darso sida AI u soo baxay, shirkado waaweyn waxay shaqada ka ceyriyeen kumanaan qof oo shaqaale ah kuwaasoo isticmaali jiray qaabkii hore ee traditionalka. kalsoonida AI-ga oo talooyin laga qaadanayo. markii hore dadka waxay talooyin ka heli jireen macallimiin, saaxiibo amaba khubaro. laakiin maanta qof walba wuxuu leeyahay AI-ga ugu caqliga badan, ChatGPT, saaxiibka ugu dhow. laakiin su'aasha isweydiinta mudan ayaa ah, miyuu ChatGPT dhab ahaantii og yahay waxa kugu habboon? ChatGPT ma dareemo murugo, farxad amaba cabsida aad adigu dareemayso. laakiin marka uu ku siinayo talo, waa aalad bini'aadam sameeyey, ma lahan qalbi. tusaale, haddii aad weydiiso sidee u maareeyaa murugadayda, jawaabtiisu waa xog uu soo ururiyey, ma fahmayo xanuunkaaga. ugu dambeyn, AI ma ahan shay xun, laakiin waa aalad u baahan in la fahmo sidii loogu talagalayna loo isticmaalo. haddii aadan maanta fahmin sida uu u shaqeeyo, beri waxay kuu noqon kartaa mid kugu adag inaad xakamayso amaba aad fahanto. muuqaalkeena maanta waxaa uga hadlaynay AI-ga iyo dhinaciisa mugdiga ah. AI waxaa loo soo saaray inuu ku caawiyo amaba shaqada inuu kuu fududeeyo. sida saxanna waa in loogu faa'iidaystaa. muuqaalkan halkaas ayaa kusoo gebagabayn doonaa. fadlan subscribe saar haddii aad rabto inaad la socoto waxyaabaha tiknoolajiyada ah.